assalaamu calaykum daawadayaasha qaaliga ee bartan ku xiran kulanti wanaagsan. Muuqaal kale ayaynu idiin wadnaa ee soo dhowaada. Muuqaalkeena maanta waxaynu kaga hadlaynaa boqoradda isteelka oo muddo 2 isbuuc kadib sagootisay saaxiibkeeda Hayk, kaasi oo si nabad ah muddo 2 isbuuc ugu damaashaadayay magaalada caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho. Magaalada Muqdisho ayaa 2 isbuuc ka hor Haykal si weyn loogu soo dhoweeyay, maantana waxa uu sagootiyey hoyga Soomaaliyeed ee Muqdisho, isaga oo ay wehelinaysa boqoradda isteelka. Waxa uu imika dhex damaashaadayaa garoonka weyn ee Aadan Cadde International Airport, isaga oo sii sagootinaya halkaasi una sii socda hoygiisa rasmiga ee Hargeysa. Waxaa lagu sheegay safarkiisa inuu ahaa dalxiis uu ku imaadayay magaalada Muqdisho muddo 2 isbuuc ah oo uu fasax soo qaatay, balse ugu dambeyn magaalada Muqdisho saaka aroortii ayuu sagootiyey. Lamaanahan qarniga ayaa noqday kuwii ugu saameynta badnaa ee magaalada Muqdisho isbuucii la soo dhaafay, kuwaasi oo noqday kuwii ugu hadalhaynta badnaa baraha bulshada ee Soomaalida, waxaana loo arkayay in meherkooda uu ka dhici doono magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, balse iyaga oo aan arrinkaasi ka jawaabin ayay ku kala tageen magaalada Muqdisho maanta. Muuqaalkeenii aynu kaga hadlaynay sagootinta Haykal ee magaalada Muqdisho ayaa intaan ku dhan. Fadlan, haddaad ku cusub tahay channelka, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ka saarto, gambaleelkana aad furato si aad uga mid noqoto daawadayaasha ugu horreeya ee uu soo gaaro muuqaalka. Fadlan, hadduu ku soo gaaro waxaan kaa codsanayaa inaad like saarto, u share garaysa asxaab badan oo kugu xiran, si muuqaalku u noqdo mid ay ugu diirsadaan dadka doonaya inay u soo dalxiis tagaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, si iyagana ay u dareemaan amni iyo xasilooni inay ka jirto, sida Haykalna ay u yimaadaan magaalada dalxiis looguna soo dhoweeyay sida Haykal. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. Intaan ayuu ku dhan yahay muuqaalkeenii caawa ee mahadsanidin.